bilowgii ciyaarta inay goolka koowaad ka dhaliso kooxda Aston Villa iyadoo shabaq uu soo taabtay xidiga Mohamed Salah iyadoo goolkaas caawinteedu ahay xidiga Robertson. kooxda Liverpool ayaa u suurta gashay inay goolka labaad ka dhaliso kooxda Aston Villa daqiiqadii 27 iyadoo uu shabaqada soo taabtay xidiga Virgil iyadoo goolkaas caawinteedu u ahay xidiga Mohamed Salah. xidiga Salah ayaa u dhaliyay kooxda Liverpool goolkiisii 172 asagoo haatan la siman dhanka goolasha halyeeyga kooxda Liverpool. kooxda Aston Villa ayaa u suurta gashay inay gool iska soo celiso bilowgii qaybtii labaad ee ciyaarta iyadoo hal gool dhalisay isla daqiiqadii 81 ee dhamaadkii ciyaarta iyo goolka saddexaad kooxda Liverpool u dhaliyay xidiga Stephen Bajcetic iyadoo ciyaarta ku soo dhamaatay 3-1 ee guul ku gaartay kooxda Liverpool. Arsenal ayaa guul 3-1 ka gaartay kooxda West Ham. kooxda West Ham ayaa u suurta gashay daqiiqadii 27 ee bilowgii ciyaarta inay goolka koowaad ka dhaliso kooxda Arsenal. qaybtii koowaad ayaa ku soo dhawaatay 1-0 oo hoggaanka ku hayso kooxda West Ham. qaybtii labaad markii dib la iskugu soo noqday daqiiqadii 53 ee ciyaarta ayaa goolka iska soo celisay kooxda Arsenal iyadoo shabaqada soo taabtay xidiga Saka. goolkaas ayaa caawinteeda iska lahay xidiga Martin Odegaard. isla qaybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 58 waxaa goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal xidiga lagu magacaabo Martinelli iyadoo ciyaarta uu ka dhigay 2-1 ee hoggaanka ku hayso kooxda Arsenal. isla daqiiqadii 69 ee ciyaarta waxaa goolka saddexaad u dhaliyay kooxda Arsenal xidiga Nketiah iyadoo goolkaas caawinteeda iska lahaa xidiga Martin Odegaard. kooxda Arsenal guul 3-1 uga gaartay kooxda West Ham.